بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الرفق بالبهائم. walaalyaal kelimadeeni waxay ku saabsan tahay in loo dhimriyo bahaa'imta iyo aflaawiyaasha. bahaa'imta oo aan hadli karin, oo aan cabiri karin waxa dhibaatada haysata, oo marka bahaa'imta la yiraahdo aflaawiyaasha in loo dhimriyo oo loo naxariisto. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وصم في وجهه فأنكر ذلك، وفي رواية لعن الله الذي وسمه، وفي رواية نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رواه مسلم. عبد الله بن عباس وحال قوري الله كرال النقضة وحوي رسول كان عليه الصلاة والسلام أي وحو أركي دمير أيو أركي ولقص سمتي أو مركز سمت لو قسمي وجيغا أو سمت لقصاري. فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرنكاسي وكو إنكري. وفي رواية لعن الله إلهي هل لعن ذبويري الذي وسمه متك أو وجيغا أو كعلى مذيه أو مركز سمد كساري وجيغا هل لعن ذبو إلهي لعنة إلهي كل ذبويري. روايات كلنا نهى ورابي عن الضرب قراعتان في الوجه وجيغا لغا قراعه وعن الوسم في الوجه على مد iyo sumada oo wajiga laga saaro nabiga uu warnahiyay. xadiidkan waxaa soo saaray imaamu Muslim. bahaa'im waxaa la yiraahdaa marka aflaawiyaasha oo marka xayawaanaadka oo aan hadli karin ayaa loo jeedaa, oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na milkisiiyey oo marka uu noo sakhiray. marka sideena oo kale arwaax waye oo gaajoonaysa oo marka haraadaysa. sidaa daradeeda ma banaana insaanka uma banaana in ihmaal uu ku sameeyo oo uu yiraahdo waa bahaa'im waye, waa aflaawiyaal oo aan hadlin waye. marka sidaa daradeeda waxa waye waa la nahiyay in marka uu cadaabo ama dhibaato uu geysto, maxaa yeelay waxay leedahay xaq bay leedahay iyo xurmad. ولهما بخاري مسلم وحا أسغناذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دخلت امرأة النار. وحيري نبيين عليه الصلاة والسلام هواني أي وحي قشي نار سببتنا في هرة إيا بصد إيا يروحا تراددبا سببت إذا إي نار كقشي وربطتها ويحرتي فلا هي أطعمتها، oo intay xirtay ay marka cuntana ay u diiday inay siiso. walaa hiya arsalatha taakulu min khashaashi al-ardi, oo way xirtay oo kadib marka waxuma ayna siin mana sii dayn oo marka duurkeeda intay gasho oo marka ay cunto ay raadsato ilaa xataa maatat ilaa ay dhimato. في هذا الحديث حديثكني يدل وحوتسنيا على أن من أمسك حيوانا قفك حيوان قبصدا أو صاق قبصدا حتى وإن كان مما لا يملك، حتى حيوان كاسها نقضوا وحيوها أو مركا أن لملكين أو أن لدقن، لكنه يجوز له أن يحبس ويؤبنا أنتهي إن أحبس أو مركا وصاق قبطة أو ميل أو كحرية ويؤبنا أنتهي، لكن بشرط أن يؤمن له الطعام والشراب. لكن وحالو بهاي هاي إن مركا عنتا إيو عبتان بأوسيو وصن عذاب. نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة وان إذا كما انكرين أنها حبست إن أي حبستي الهرة وبسد إن أي حبستي تاسي كما انكرين، وإنما أنكر الإساءة إليها وحكو انكري in marka dhibaatadu iyo xumaantu ay u geysatay ayuu ku inkiray, oo marka waxa way cunto iyo biyo ay siin weysay oo aan sii deyn weysay ayuu ku inkiray. marka sida daraadeeda fala yajuusu ma banaana lilmuslimi qofka muslimka an yusii'a inuu xumeeyo lilxayawaanaati xayawaanaadkii iyo shimbirihii waxaas oo dhan ayaa soo galaya
haddii marka uu soo qabto in marka waxaa weeye raashiin iyo cabitaan inuu siiyo uusan cadaabin ayaa loo baahan yahay. marka bahaa-imta oo aflaawyaasha ah in loo naxariisto ayaa loo baahan oo loo dhimriyo. hada wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.